mas-uuliyiinta maamulka gobolka Doolo iyo kuwa degmada Wardheer ee gobolkan Doolo ayaa soo kormeeray mashaariicaha horumarineed ee ka socda xarunta gobolka Doolo ee magaalada Wardheer. Mas-uuliyiintan oo isugu jirtay heer gobol iyo heer degmo uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Doolo mudane Cabdulaahi Deeqa Xasan ayaa soo kormeeray mashaariicaha horumarineed ee laga wado xarunta gobolka Doolo ee magaalada Wardheer, isla markaasina ay u kurgaleen jidka laamiga ah ee isku xidha gobolada Doolo iyo Qorraxay oo waqti xaadirkan shaqadiisii la bilaabay walow muddooyin badan uu soo taagnaa jidkani, isla markaasina waqti xaadirkan lagu soo gabagabayn doono muddo 3 bilood ah gudaha magaaladan sida ay sheegeen mas-uuliyiintu. Waxa kale oo ay mas-uuliyiintu soo indheeyeen urur kurgaleen ballaarinta leydhka 24 saac ee laga wado laba xaafadood oo ka mid magaaladan Wardheer. Mashaariican horumarineed ee ka socda xarunta gobolka Doolo ee magaalada Wardheer ayaa waxa lagu rajo weyn yahay marka la soo gabagabeeyo mid wax weyn ka bedeli doona baahidii horaantii loo qabay jid laami ah iyo leydhka 24 saac oo wada gaadho guud ahaan xaafadaha magaalada Wardheer. Gudoomiyaha maamulka gobolka Doolo mudane Cabdulaahi Deeqa Xasan iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Wardheer mudane Meelud Duraan Cabdulaahi ayaa warbaahinta dowlad deegaanka Soomaalida SRTV ugu warbixiyay gabagabadii. waxaan maanta soo kormeernay laba mashruuc oo midna yahay mashruuca wadada laamiga ah magaalada Wardheer, midna yahay mashruuca ballaarinta leyrkirinta oo magaalada. markaan ku hormaro dhinaca wadada, si guud wadadan kolley waa laba qaybood oo si guud qayb waa qaybta caadiga ah ilaa qaybta isku xirisay hajiitanto har dheeraato, laakiin shaqo fiican baa runtii ka socota. waad ogtihiin Kudumbuur laamigu inuu ilaa in fiican u soo dhaafay. inta kalena diyaarintii iyo maxaan ku yiraahdaa la dhigayo bundooyinkii hagaajintoodii lagu jiro iyo diyaar gareyntii. qaybta kale waxay ahayd magaalada gudaheeda oo aan xilli hore u sii qaadanay assignment ahaan inuu xukuumadda iyo kaashanayna xisbiga guud ahaan in magaaladan si ay koritaankeeda iyo kobaceeda qayb uga noqoto in magaalada laamigeeda la horumariyo. qaybtii marka laamiga magaalada ayaan iyadana soo kormeeraynay maantay. inta badan drainage-kii baa waqti badan qaatay, drainage-kii oo meel fiican maraya. diyaar gareyntii kale maxaan ku yiraahdaa sida inoo sheegeen hadda injineeradu inay waqti kooban oo ilaa 3 bilood ah ay ku soo gabagabayn doonaan ay inoo sheegeen. shaqadana si fiican u socoto runtii. mar labaad waxaan mahadcelinaynaa shacabka magaalada Wardheer oo sida tiimka ay sheegeen runtii dabagalka anagu aan ku hayno dad tiimkan shaqada wada marka laga soo tago shacabkuna garab istaag badan iyo shaqada fudaydin fara badan ay sameeyeen. aad baan uga mahadcelinaynaa. arrinta leyrka magaaladan leyrka markii la soo gaarsiiyay expansion ama ballaarin lama samaynin. mar dhaweyd ilaa 2 haamood oo qabalaha koobaad la geliyay waatii hore u timid. cabashooyin fara badan oo dhinaca qabalaha afraad iyo qabalaha labaad oo si xooganaadaan oo leyrka horena uu ku yaraa ayaa iyagana hadda dadaal fara badan oo muddooyinkan aan wadnay natiijada ka soo baxday noqotay in labada hadda qabale la geliyo leyrkii si toos loo geliyo xaafadaha la gaarsiiyo. iyadana si fiican bay shaqadu u socotay runtii. tiirarkii baa la taagayaa. kadibna waqti kooban aan fogeyn ayaa leyrkii loo sii dayn doonaa dhammaan xaafadahaas ay heli doonaan. waxaan rajaynayaa mar dhow magaaladani inay xagga leyrka iyo dhinaca jidka laamiga magaalada gudaheeda ay kor u kici doonto. ujeedooyinkan u dabagalayna anagu iyo u dul taaganahay waxa weeye in shaqadii si dardar ah ay u socoto. haddii caqabado jiraan wixii caqabado jiraan la xalino, haddayna caqabado jirin oo caqabado inta badan waxa soo daashaday dhinaca dhaqaalaha inta badan la xiriira. iyadana runtii anagu uga mahadcelinaynaa xafiisyada qusaysa heer deegaan dadaal fiican bay ka sameeyeen dhanka dhaqaalaha in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo oo hay'adaha qusaysa culays lagu saaro. iyadana hadda si fiican bay u socotaa. waxaan rajaynaynaa waqti kooban labada mashruuc natiijada la taaban karo in laga gaari doono. waxaan maanta kormeernay mashaariicda waaweyn ee magaalada Wardheer ka socota. wadadii laamiga ahayd oo iyada laftigeedu bilicdii iyo accesskii iyo wax badan bulshada u qabanaysa in bulshada laftigeedii ay waxyaabaha soo dhaweynaya ay ka mid noqotay. biyaha oo isaguna qayb kaalin weyn ka qaadanaya biyigelinta magaalada loo sameeyay oo in lagu taamo wax badan in la qabsado la sameeyo. leyrka oo isna hadda progress ama wax fiican ka socdo. leyrka 24 saac la soo geliyay oo horumarkii bulshada iyo ku taamistii bulshada ariyaan dhankii dawladda in wax badan la qabtay oo qofkii waxyaabihii daruuriga ah markuu helo leyrkii helo biyihii helo jidkii helo isaga laftigiisu wuxuu ku taamayaa inta markuu helo inuu isbedel sameeyo. si guud waxaan ugu baaqaynaa
dhammaan ummadda u dhalatay gobolka Doolo khaasatan degmada Wardheer magaalada Wardheer in fursado fara badan oo maalgashi bannaan yihiin annaguna waxyaabo badan oo facility oo dadku u baahnayeen oo dhanka dawladda culays ka haystay inaan u fududeyno inaan soo dhaweyno dadka maalgashanaya hadda saaka waxaan booqanay laba dabaq oo hoteelo waaweyn oo laga wado oo midkiiba 100 iyo intaas oo qol uu noqonayo oo dad maalgashadaya sameynayaan sidaas oo kale fursado fara badan ee maalgashiga ee bannaan sida warshadaha goobo dalxiis in la sameeyo inaan dhammaan bulshada ku soo dhaweynayno una fududeynayno baahi kasta oo ay qabaan dhammaan qurba joogta iyo dadka hantida haysta ee raba inay maalgashadaan waxaan ugu soo bandhigaynaa inaan diyaar u nahay inaan garab qabanno adeeg kasta oo in meeshii ay wax ka samaysteen haddii jid la gaarsiinayo haddii leel la gaarsiinayo haddii biyo la gaarsiinayo iyo access kasta qofkaasi u baahan yahay inaan u fududeyno dhinaca kale qaar ka mid ah howlwadeennada gacanta ku haya laydhka 24 saac iyo jidka weyn ee halbowlaha ah ee isku xidha gobolada Doolo iyo Qorraxay oo iyana geesooda warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida SRTV halkaas kula hadlay ayaa ka warbixiyay isla markaasina sheegay halka ay wax marayaan mashruucan aan wadano waa mashruucii leergelinta magaalada Wardheer kaasoo loogu projectiga aan ka bilownay laba qabalaha afraad iyo qabalaha koowaad cid kastoo ka qayb qaadanaysa hawsha leerka inay dhinaceega iyaduna ka qayb qaadato haddii doon degmada ahaato haddii doonto shicibka ahaato dhammaan reer Wardheer waxaan leeyahay ka qayb qaata hawsha leergelinta ka socda labadiina qabale